معنا wanaagsan daawadayaal maalinimada Axad waxa wadanka Qatar ka bilaaban doona koobka adduunka kaasoo isku imaan doonaan wadamo fara badan oo ka kala socda qaaradaha adduunka. Haddaba hadafka ma ahan inaan uga hadlayno saadaalinta iyo ka sheekeynta koobka adduunka, laakiin hadafka waxa waa inaan kaga sheekeyn doono barnaamijkeena One Speedka iyo qaababka loo adeegsanayo koobka adduunka. waxa laga yaabaa qaar badan oo idinka kamid inay fahamsaneen One Speedka iyo waxa uu yahay iyo sida loo isticmaalay saameynta uu ku leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed. barnaamijka oo hadli doona One Speedka ayaa waxa lagu kala tilmaamaa inuu yahay One Speedka waa application kaasoo lagu socdaaliyo ciyaaraha markaas dhacaya iyo sidoo kale kombiyuutarka gameka lagu ciyaaro kaasoo loo isticmaalo hab qamaar ah oo qofku uu dhiganayo lacag hadii uu guuleystana lacag ayuu heli doonaa sidoo kale hadii uu guul dareystana wuxuu heli doonaa qasaaro taasoo ka dhigan in koobka adduunka uu yahay midka ugu saameynta badan taariikhda markay imaato isticmaalka One Speedka maadaama maalin kasta laga yaabo in afar koox oo waaweyn tartanto hadiyadaha iyo sidoo kale awaamirta lacageeda lagu bixi doono ciyaarahaasna ay noqon doonaan mid aad u fara badan markastoo aad dhigato lacag aad u fara badan laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa hadii aad lacag fara badan dhigato oo saadaalinta aad gafto waa maxay ujeedka aad gaari doonto waa qasaaro taasoo aan u hadli doono barnaamijkeena saameynta dhaqaale ee ku leeyahay wadanka. Hadii aan bilaabno talada koobaad ee lagu joojin karo One Speedka ama qamaarka qarsoon ee dadka Soomaalida inta badan lagu qaldo ayaga waxay noqonaysaa mid koobaad in waalidka wiilkaas dhalay uu aad maal walba ula sheekaysto sidoo kalena aad ugu wacyigeliyo barnaamijkaas aadka u liito oo wax yar oo noloshiisa dhan ku burburin karo iyo dhaqaalaha asaga aabaha wiilkaas dhalay. Haddaba waa in waalidka mar walba ay sameeyaan wacyigelin mar walbana waxa muhiim ah qofka guriga oo ka soo kacayo ama wiilka dhalinyarada in aabaha ama hooyada ay aad uga warqabto mar walbana ay ka wacyigelido. Sidoo kale wacyigelinteena labaad waxa muhiim ah in culimada ay aad uga sheekeeyaan barnaamijyadka markii xaaladahan amal imaato koobka adduunka ha noqoto ama waqtiyada ciyaaraha kale ay jiraan in wacyigelin badan ay ka sameeyaan way Ilaahay sidoo Quraankiisa noogu sheegay waa xaraan waxa qamaarka loo yaqaano. laga soo tago wacyigelinta bulshada iyo sidoo kale culimada iyo waalidka waxa kale oo ka muhiimsan in markasta ay talaabo geesinimo la qaado dawladda Soomaaliya taasoo ka dhigan in One Speed uu saameyn badan ku leeyahay sarifka lacagaha qalaad ee wadanka dhaqaalaha wadanka iyo sidoo kale ka faa'iideysiga jiilka Soomaaliyeed ee dhalinyarada taasoo keeni karta hadii kor loo qaado wacyigelin iyo sidoo kale shaqaaleysiin inay la imaan karaan hab ay ku tartamaan caalamka laakiin qamaarka ma ahan optionka kaliya ee istaan dhalinyarada si dawladda iyo culimada iyo waalidku iskaashadaan laga soo tago wacyigelinta bulshada iyo sidoo kale culimada iyo waalidka waxa kale oo ka muhiimsan in markasta ay talaabo geesinimo la qaado dawladda Soomaaliya taasoo ka dhigan in One Speed uu saameyn badan ku leeyahay sarifka lacagaha qalaad ee wadanka dhaqaalaha wadanka iyo sidoo kale ka faa'iideysiga jiilka Soomaaliyeed ee dhalinyarada taasoo keeni karta hadii kor loo qaado wacyigelin iyo sidoo kale shaqaaleysiin inay la imaan karaan hab ay ku tartamaan caalamka laakiin qamaarka ma ahan optionka kaliya ee istaan dhalinyarada si dawladda iyo culimada iyo waalidku iskaashadaan waxa la suurtagal ah in halkaas loogu gudbo wax loogu magac daray qamaarka dhiirigelinta wata ee One Speed balanteena waa noo qamaar